kulan ciyaareed aad u xiiso badan oo galabtu markaasi yeesheen kooxaha Hegan iyo kooxaha Horseed ee kubadda gacanta gabdhaha Soomaaliyeed. kulankan ayaa waxa uu ka tirsanaa horyaalka kubadda gacanta gabdhaha Soomaaliyeed waxayna ku ciyaareen garoonka Cabdicasiis ee Wish Stadium ayayna ciyaartaasi ka dhacday. waxa uu soo daawasho tagay daawadayaal aad u fara badan. kulan ciyaareedkan oo la xiiseynayay labada kooxood ayaa ku hardamayay horyaalka kubadda gacanta Soomaaliya. kooxda Hegan ayaa bilowga ciyaarta hoggaanka u qabteen iyaga oo markaasi goolal aad u qurux badan dhaliyeen. kulan ciyaareedkan oo kooxda Horseed ayaana dardar xoogan ku soo gashay iyadoo ay markaasi sameysay ciyaar aad u qurux badan walow ee looga gacan sareeyay ciyaarta. labada kooxood ayaa markaasi midba midka kale ee u jawaab celinaya ayaa ahayd ciyaartooda mid aad u adag. ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxa ku soo idlaatay 16-13 oo guusha ku raacday wiilasha oo guusha ku raacday gabdhaha Hegan ee markaa kooxda Horseed ayaa laga adkaaday gabdhooda. waxaana sidoo kale waxa kulankii wareegga hore ee ugu dambeeyay tartanka iyagoona soo gabagaboobay wajiga koobaad. maalinta Axadda ayaa la ciyaari doonaa wajiga labaad oo ay markaas wada ciyaari doonaan kooxaha Hegan iyo sidoo kale kooxda barbaarinta ayaa markaas wada ciyaari doona. sidoo kale kulanka markuu idlaaday waxaa warbaahinta markaas Heelan la hadlay kabtanka ahna goolahayaha kooxda ee Hegan iyadoona guusha ay gaartay ay markaas ka hadashay Ridwan oo markaas sheegtay in sanadkan ay markaas dadaal badan iyo shaqo badan ay qabtay maadaama kooxda Horseed oo loolankiina maanta ka adkaateen. midda koowaad waxa uu hambalyeynaa Ilaahay mahadiis. midda labaadna waxa uu mahadnaqana ciyaartooyda kooxda igula jirtay. midda saddexaad macallimiinteeda garab taagnaa intaas. midda afaraadna waxa uu hambalyeynaa macallimiinta TV-ga waa ku dhawahay waa ku faraxsanaa maanta guusha aan gaaray. aniga qof aan yeesaa ma lahan qof aan dhaha waa ka badinaa ma jirto. banooniga waa cad iyo madow garoonka hadii la soo galo qof uun bay guusha raacay. alxamdulillah shukr bil caalamiin guushii ay raacday. marka sanadkan maxaa filaysaan maadaama afarta kulan soo ciyaarteen oo guuleysteen? walaahi guusha horta guusha iskama timaada dadaal ay ku timaadaa. macallimiinteena nagu dadaalay ciyaartooyduna way dadaaleen maadaama afartii kulan aan soo guuleystay waa ku faraxsanahay aad iyo aad aan u faraxsanahay. marka banoonigana waa cad iyo madow marka waxaan ku faraxsanahay maanta guuleystay. rugta labaad ee horyaalka maxaad rajeynaysaa? والله أرتار وحوا بنوني والله ما ديك روان بدنا ما ديك كرتت إنك صدق حفالتن كاله ده حس لكن وبدنا ما ديك رو جوش مركان قرن كسلني ما إنه قف جوش راعي تاس إله بقى مركز عن كهاد لكرنا لكن هذا ما كهاد لكرنا.